Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkeena Xaashi Visual. Channelkan aynu ku qaadano wixii multimedia ku saabsan ama applicationska multimedia oo dhan. Waxaanu bilaabnay series video yar oo gaaban oo ilaa 15 daqiiqo ugu badan yahay. Waanu ku baran doonaa Photoshop from basic ilaa intermediate. Marka casharada waxaanu qaadanay tutorialkii koobaad oo ahaa sida Photoshop loo soo download gareysto, sida computerkaaga loogu shubto iyo sida ugu horeysa ee ah iyo interface-kiisa sidoo uu shaqeeyo inagoo baranay toolska iyo panelska. Maanta tutorialkeena labaad waxaanu qaadan doonaa tutorial kooban oo kaga hadli doono sida image-kaaga aad u furanaysid, aad u save gareynaysid, aad waliba u edit gareynaysid inagoo sameyn doona editing yar kooban. Haddii aynu sharaxno faa'iidada koobaad ee uu leeyahay Photoshop-ku waxa weeyaan waxa loo yaqaano non-destructive editing oo ah inaad sawirkaagii koobaad aad ku bilowday tusaale ahaan sawirkan aan ku bilownay deetana geedkeenu ka jarnay deetana cirkeenu ka bedelnay saad arkaysaan hadana geedkeenu ku soo celinay geedkeenu hadana mar labaad qaadna xagaas inuu geysanay mar saddexaad baynu qaadnay marka waxaas oo dhan waxaanu sameynay inagoo isticmaalna wax loo yaqaano non-destructive layers sawiradan isticmaalana waxay kugu jiraan link in the description-kii kugu jiraan marka waad heli kartaa sawiradu waa kuwan waxaan furayaa markaa sawirka iyo sawirka labadaas sawir isla socda haddii aan soo weydiin view-ga large inaga dhigo waxaan furayaa labadaas sawir baan soo furayaa ka iyo ka marka control baan qabanayaa control markaan qabto labadiiba waan doortay deetana marka koobaad ka horaan doornay deetana control deetana kilaad baan click siinayaa deetana open baan leeyahay labadiiba waxay igu furay wax loo yaqaan tabs oo halkan ay ku jiraan labadiiba tabska airport ku furaysaa tabska waa la riixaa asaas loo soo qaadaa haddana sana loo soo qaadaa waad ku celin kartaa xaggii sare markaad u baahatid marka tabs baa la dhahaa tabs waxa laga maamulaa oo ay ku jiraan laga yaabaa inuu kaagu tabs kugu furay marka waxa tigis edit deetana tigisa preferences deetana workspace-ka deetana waxa tig saaraysaa halka ay ku qoran tahay open documents as tabs click saar deetana okay marka imika marka sawir furto aan xidho marka sawir furto file open and dhaho control o deetana labadiiba waynu wada dooranayna markaan wada doorano waxa ka soo dhigaya tabs wax loo yaqaano tabskana waa nigidin sharaxay waxaad ka tagaysaa edit preferences-ka deetana waxa doonaysaa workspace-ka deetana halka yareed baad tig saaraysaa waayay laba sawir saad ka kala u soo qaadato saad kan u soo qaadato waxaad samaynaysaa kan tabkiisa soo qaadaysaa saas u soo jiidaysaa deetana kii kala xaga kaaga muuqda saad wada arkaysaan aan yareeyo tabkan xagan aan dhigto markaad click siiso oo fiirso layer-kaagu isbedelaya kolba sawirkaad joogto markaad joogto kan uu noqonayaa markaan ku dhufatana kan uu noqonaya okay so kana ku dhufanaya deetana soo qaaday deetana xagaas ka soo dhex tuuraya marka automatically sawirkii kale uu soo qaaday aan iska xidho markaa kan deetana kana ku dhufanaya soo qaaday marka waayay sad u arkaysan marka wax noqday layer buu noqday marka halka hadan aynu eegno kan waa mid kan layer-ka maxaa laga faa'iideeyaa wax laga faa'iideeyaa waad baqtiin kartaa sida baad ka muuqataaga waana shidi kartaa waad ka xayn kartaa sawirkaaga meel baad dhigan kartaa kolba xagaa doonaysaa dhigan kartaa waxa kale oo aynu u baahanahay marka inaan barano shortcutyada ugu horeeya ugu muhiimsan ay yihiin inaad zoom in iyo zoom out marka waxa lagu sameeyaa zoom in waxa lagu sameeyaa control bal qabanaysaa deetana plus aad ku dhufanaysaa haddaad dib uga noqonaysaa waxaad taabanaysaa control deetana minus baad taabanaysaa keyboardkaaga deetana dib baad uga baxaysaa kolna hore haddaad doonaysid inaad fit gareysid marka waad inaad fit gareysid fit baa la dhahaa deetana control iyo zero deetana automatically is fit gareynayaa haddii markaad zoom gareysid aad doonaysid inaad sawirkaaga bar qaadid aad dooratid gacanta yar baad tegaysaa deetana saasaad u eeganaysaa haddii kale waxaad qabanaysaa space deetana saasaad click basinaysaa mouse-kaaga waad xajinaysaa deetana xaggaad doonaysid waad eeganaysaa okay deetana control zero taabo markaad ka dhamaysato ama control minus iyo control plus way shaqada koobaad aan qabanay waxa weeyaan inaynu sawirkeena aan magac ka bedelo halka yar deetana waxaan halka yar baan click siinay layer-ka ku qoran tahay laba jeer deetana waxaan ku qorayaa sky yarkii weeyaan yarkan yara weyneynaya waxoogaa saan u weyneeyo waxaan tegayaa edit deetana doonaya transform control shortcut-keeda waxa weeye control t deetana saasaan yara weyneynaya waxoogaa okay waan siinay waayay aan yara baqtiya marka sky-gayga yara isha yar baan ku dhufanaya baqtinaya kana ka shaqeynaya marka koobaad aan soo yara dhaweeyo control plus aan taabto aan doonaya meeshan geedka ka masaxo anigoo aan sawirka taabanayn marka waxaan tagayaa xagga ugu hooseysa waxaan tagayaa new plus side baan ku dhufanaya macnaheedu yahay new layer amba waxaan tagayaa layer deetana new deetana waxaan dooranaya new layer control waxaad ku galaysaa shift control n deetana okay waad siinaysaa haddii kalena plus side baad tegaysaa ka samaysa waxaan intaas sameeyo waxaan tagayaa wax loo yaqaano healing brush click baan siinayaa click haddaad xajiso waxa kuu soo baxaya optionskaas oo fara badan oo healing brush ku jiraan shortcut-keyguna waxa weeyaan ja haddaad arkido kaasi kugu jiro amba kaasi kugu jiro ja unba taabanaysaa amba kaasi xajinaysaa intan oo dhanba healing brush baa isku leedahay healing brush ku sareeyaan tagayaa xaggan u sareeysan waxaan dooranayaa wax loo yaqaan maxay symbol oo layers kana waxaan dooranayaa maxay
content aware fill baan dooranayaa goobadaas haddayna ku soo baxayn kablog ku shidan kablog shidaysaa iska baqtinaysaa size-kii deetana aan markaa masaxo markaa in yara weynayo okay click baad markaa siinaysaa waad xajinaysaa markaa clickta inta masaxay sidoo dhan okay yara cali okay agana bulbaan iga raacay marka haddaad iminka marka layerkaaga click siiso marka layerkan geedkii waan ka masaxnaa meesha sawirkii ugu horeeyay inaan taaban waxa ku meenan sameyn marka kana waxaan ku qorayaa clean baan ku qorayaa way aan dib u bax marka aan layerkan shido saad arkaysaan marka waxa ka masaxay geedkii dib aan yar baxo sky-ga baan shidayaa marka move tool-kan tagayaa waxaan dooranayaa marka layer blending modes ama blending modes wax loo yaqaano halka laga furayo waxaan dooranayaa marka kay noo soo baxay marka waxaan tagnaa dissolve marka sawiradan isu geegeynaya oo qaab ay isu dhex galaan multiply-gaas marka dooranaa imka multiply-gaas ka dhigaynaa marka ugu horeysa normal buu taagan yahay laakiin waxaan dhigan doonaa blending modes oo fara badan laakiin waxaan doonaa wax loo yaqaan multiply way background-kana cadaan buu ahaa multiply ma kala dhaho labadii sawir si fiican isku dul dhigay saad arkaysaan sawirkeygii waa kan in yara weynaysiyo so edit si marka hore aan control T in yar baa kala bixinaya okay and see marka all right xagaan xiriyo okay inta baasinaysa marka dab saad arkaysaan marka badba iga jira sawirkeygan hadaan sawir raqaajiyo badba xayaan ku jira marka waxaan rabaa inaan intaas soo quraata selection ku sameeyo doorasho wax loo yaqaano marka waan iska baqtinayaa erkii waxaan tagay wax loo yaqaano halkan aan tagayaa laga yaabaa in object selection adiga ku taagan yahay laakiin waxa la yiraahdaa selection iskan object selection quick selection iyo magic in dooranana marka shortcut-kiisuna waa W magic in dooranana xagga sare waxaan dooranayaa sample all layerski halkana tolerance waxaan ka dhigayaa 40% deetana waxaan dooranaynaa erka inta cadaanka aan dooranaa marka automatically selection kan wuxuu ku eegayay marka inta cadaanka deetana waxaan dooranaa sky-gi click basina sky-gi deetana xaggan hoose tagaynaa deetana waxaan dooranaa halka ay ku qoran tahay maxay waxa ku soo baxaya add layer to mask baa la dhahaa in yara photoshop soo yara qaasado aragtaan haddaan saa idhaaho u fiirso waxa ku soo baxay add layer to mask layerka mask u isticmaal selection kiina waa kay noo doortay waxa yara garinaya waxa la dhahaa selection deetana click basina wow marka imika cirka wuxuu ku eegayay intaas oo quraata way beautiful way cirkeenu laakiin waxa yara naaqus wax loo yaqaan opacity-ga oo loo yaqaan aragtida oo 100% laakiin yaranana waxa ka dhigaynaa meelaha 60% ama 40% haddaan isha baqtay marka hore saas oo ha imika saasana ka dhignay good waxaan gelnaa marka qodobka labaad oo ah inaynu geedkii mar labaad soo celino marka aan baqtiyo kan aan baqtiyo deetana sawirka aan dooranayaa aan soo dhaweeyo geedka control plus 2 jeer 3 jeer waxaan tegaynaa waxa loo yaqaano color range-ka so select waan tegaynaa oo doorashaa deetana color range marka ugu horeysa halkan waxaan dooranaynaa grayscale halkaas laga yaabaa invert inay tahay inaan ahayn laakiin invert baan dooranaynaa deetana waxaan dooranaynaa erka dooranaysa so marka ugu horeysa tegaysaa halka airport grayscale ka dhigaysaa invert ka shidaysaa qalinka airport qaadanaysaa erka dooranaysa brasta tegaysaa adob dooranaysaa soo kaaga baxo inta kale selection feathering kana ku dhanaysaa all right so okay wasinaysa marka imika wuxuu isku bedelay wax loo yaqaano selection control J ama waxa tagaysaa edit copy edit paste marka imika saa ku muuqata hadaan kii hoose baqtiyo saa inoo muuqata waxay noo soo baxay geedkii oo background-ka go'an yahay oo erkii wadan laakiin dad waxaan rabnaa geedka oo quraatan rabnaa so selection kan tagaya kan rectangle kan tagaya xagga u sareysan waxaan tagayaa kaay ku qoran tahay add selection kii deetana waxaan dooranayaa geedkii taasoo dooranayaa haddana inta hoose geedka dhima ma dooranayaa deetana imika uu noo doortay geedka dhammaystiran deetana waxaan tagayaa select deetana waxaan invert geedka ma rabo geedka waan rabaa laakiin inta kale aan rabin so invert baan taabanayaa wixii invert garanayaa selection keygii deetana waxaan taabanayaa delete automatically marka waxa geedka khaliya soo haray select deetana waxaan deselect okay aan shida marka saddexdii kale layerkigan halka screen-ka dhexdiisa qabanaya kor baan qaadaya deetana waxa geenaya maxay xagga u sareysan geenaya anigoo click taxajinaya aan ku soo celiyo soo halkaas uu qabanaysa dhexda click taxajinaysa xagga u sareysan geenaysa okay imika side muuqata marka
geedkayga xag waxaan keensaday xagan keensaday soo yaraadiyo good keyboard shortcuts arrowyada dad taabato wuxuu dhaqaajinaya layer ka dhaqaajinaya waayahay aan dib u bax marka sabab arkaysan geedkii meeshaan keenay waayahay marka geedkii haddana cirkii haddana kii horan geedka ka masaxnay waan masaxnay cirkina ka bedelnay geedkan soo koobi garaysan xagga sare keensanay way geedkan rabaa inaan ka sameeyo geed kale soo sal layer hadiga layer deetana dooranaya duplicate layer deetana xalanaya waxaan 32 baan ku garaadan doono 32 deetana saad arkaysaa mid labaad buu sameeyay move tool kan tagaya jiridan qabanaya marka deetana saan qaaday halka doonayaan geysanaya waan yareynaya waxaan tagaya edit transform control T deetana saan yareynaya alright good saas oo kale aad geed kale ugu samaysan kartaa saddexaad waayahay inta markaan sameeynay waxaanu ku xigsiinaa kale inaan barano saving-ka waxa loo yaqaan inaan failkeena save gareysano ka koobaad qaybta koobaad waxa weeye inaan barano saas loo save gareeyo oo ah maxay Photoshop oo loo soo gaabiyo maxay PSD so file save as save to my computer waxaan ku save karnaa desktop-kayga option-ka u sareeyo maxay file type-ku save as type-kiisa waxa weeyaan PSD ama Photoshop PSD loo soo gaabiyay data example image waxaan example 3 data okay baan siinaya iminka saad u arkaysaa marka file-kayga wuxuu ku save gareeyay desktop-ka haddii aan soo qaadan xagan keeno attachment-ka ka saaro haddii markaa soo qaado waa kan file-kaygii haddaan laba jeer kala gareeyo marka Photoshop-kii uu furayaa oo ay ku jiraan maxay layeradii aan ka shaqeynayo dhammaantood oo dhan okay marka sidoodii buu igu save gareeyay waxba iga bedelan waayahay qaabka labaad waxa weeyaan inaan save gareyno as a JPG bis JPG so file save as deetana save to my computer then desktop-ka weeyaan deetana waxaan dooranaa waxa loo yaqaano maxay kaasa tegaysa waxaan dooranaa JPG deetana example 3 okay save wuxuu ku weydiinayaa resolution-kaad ku save gareynaysid waxaan ku save gareynaa large 14 MB buu noqonayaa laakiin waad yareyn kartaa wuxuu noqon karaa 3 MB kolba saa jeceshahay 4 MB baan ku save gareynaa okay desktop-ka laabo sawirkayga waa kan laba jeer haddaan kala gareeyo waxay soo baxaya isagoo sawirkan ka shaqeeya ma labadii geedaan dhigay iyo arkay isagoo JPG-ya oo sabaad ku diri kartaa qof u diri kartaa kolba saa jeceshahay marka labada formaadna waa lagu save gareeyay tutorial kale labaad ku kulmi doono waa aniga Maxamed Xaashid leh maalin wanaagsan channel kale ku xidhnow subscribe iyo like tana soo badi